الجانيو ولي وقفولي هاي أرحي الرصاصي وابدا يسلم غليها أرمنا في ذوبي أمني ما بقينا هابي البلابي المركوب وصدود دي توقف سمايا بوس ليتي ليه هذا بوس لا إله إلا الله كلام عادل إله ونبيس وما نقال بقى أنا قروج أزانيا فما سنتين الله فريستو هذا الجهل الله فريستو سعد جهل جوجيو سعد جهل جوجيو الله فريستو الله فريستو الله فريستو الكتاجر الله فريستان تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاشرف وين نوع هذا الكحكة كيري هواكم هذا الكلام جوجيو وحاشرف وين نوع إن إيماننا نقل سوكان كلام شركة نقل مانتا أينو كل سينو مامور goboleedka AZAANIYA تحت القول كذا يجوبوين جوبلا كحيل جوبلا هوسا كل سينو إن أي نقل سوكان كلام منا شرف له وزير يوم هو هاي حلبان السعودة الدولة كيا يلا أنو نهي الدولة كيا أي تهي لفنبركا ما اسمها مامور كان ويا هاي أو ما تلاقي نجلا سوق الجلد حتى كهرنا أي نجلا سوق الجلد ما تذكروا حمنا كلو جيي والدولة كترسان أي نجلا سوق الجلد سلام حالي لها تدوبي حجيك برلمان كيا هو هاي ما عنده هكذا نجلا سوق الجلد بارح معلم حتى ما توحنا للجوا أساسا منستا مركز سراوية هي الديوان بحوها صفية عبدي إلى قبل يجب سود ويننا فحنا سود ويننا ملحوينها بروفيسور محمد عبدي قادي هو سود وين وحسن فواما بسم الله الرحمن الرحيم أنا وركي ومديرة بسم الله الرحمن الرحيم أنا وركي ومديرة وحان شعلها عن السوداوية صفيو عبدي وصار رأس عطان حلوانة وكترسن برلمانكا دولة كينيا يا آدم بردو عليك وأهو حيانك حمانا حولها وحانا جعلها إني أبسود ويفلوركا صفيو من كوور السمارك مدحوينها قيمها بدن وشرفت بدن بروفيسور محمد عبدي قادي مدحدا ودن هلka isku timaaday odayada gabdhaha sharafta badan urumadiinka salaam calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan imaado oon ka soo qayb galo maaragta meel dadkii aan wada dhalanay oo walaalaha nahay oo isku magaca nahay Soomaaliyeed oo ka shooriyaan arrimaha ku saabsan noloshada dhaqaalaha
horumarka midnimada ammaanka ka tashanayaan aad baan ugu riyaaqnay dib maaragta aad u sameeyay meel alla meelay Soomaali ay joogto dibkaas qof ay taabaneen malaha dhibaato fara badan baa la soo maray waxyaalaha diinteena islaamka ogolan baan ku soo dhaqannay dhibaato badan baan soo marnay waxyaalaha badan baan soo marnay hadda maadaama inteedan halka isku imaatay ka fikirnay ka fariisanay wada eegnay inay sidaas loo socon karin oo nidaamka in la bedelo waa ilaahay mahadiis ilaahay baan ku maadinaynaa marka waxaan rabaa qof walbaba inuu ma aragtaa oo aragno walaalayaalo meesha noo fiican talada fiicneed waa qaadateen ilaahana waafajiyo ilaahay baan ka baryaynaa waqti kastaba inuu talaabadaas fiican noo wada tuso intii aan talaabadaas saytona wax hadda ka arkayso talaabadana ilaahay inuu soo hanuuniyo oo noo soo celiyo ilaaha ka baryaynaa marka aniga maanta halkan waxaan u imaaday wax yar inaan ka hadlo sidii dowladda loo dhiso xibin ka mid ah inaan ka hadlo xibnaha dowladda waa 3 xibnood bay dowladda ka kooban tahay dowlad kasta oo la dhiso adduunka 3da xibin ay ka kooban tahay waxa weeyaan madaxtooyada baarlamaanka iyo xibnaha xakamadda garsoorka marka waxaan ka hadli rabaa garsoorka ka hadli rabaa anoo expert ahayn laakiin wax yar baan ka taabanaya marka garsoorka waa xibin ka mid ah 3 xibnood oo dowladda ka dhisan tahay marka garsoorka wuxuu yahay markuu caadil uu yahay oo daacad uu yahay oo xaq ku dhaqanayo waa wuxuu yahay backbone la dhabarka wadanku yahay marka waxaa laazim ay tahay in la helo xakamad daacad ah xaqaani ah oo ma aragtaa mar kastaba u istaagayso xaqa oo dadka kala bixinayso sida ogsoontiin baarlamaanka sharciga uu hagaajiyaa maxakamadana waxay samaysaa way fasirtaa sharcigay fasirtaa markay fasirto sharcigaas asagay ku dhaqan gelisaa markaasayto siday wax ku xukumi marka xukuumadda waxay ku imaanaysaa sharciga baarlamaanka ka imaado ayagoo fasirayaan bay dadka ku xukumayaan marka xukuumaddaas ayada ah bay ay ka sameeyaan executive-ka oo madaxtooyada ah ayaga waxa weeyaan inay dhaqangeliyaan baarlamaanka wuxuu mariyey inay dhaqangeliyaan weeyaan madaxtooyada marka haddaa idinka soo qabto Kenya mar dhowbaan maaragtaa aan ka fariisanay oon qaynuun cusuban aan la soo baxnay qaynuunkaan la soo baxnay wuxuu in yar uu maaragtaa xakamadaha wax yar ka bedelay sidii hore ma ahayn awal wuxuu ahaa ingiriiska la mid ahayd oo xakamadda Kenya ingiriiska la mid tahay hadda ayadoo labada tii ingiriiska iyo tii Amerikaba waan isku darsanay marka waxaan leenahay kootiyaal baan leenahay maxkamadaan leenahay maxkamadahaas ayto maxkamadda u weyn waxaa la dhahaa Supreme Court كله إني كا سومالي ما كان بيجي على هذا إنسان مركا Supreme Court بجرا مركا وحكوحيجا Court of Appeal بهذا الجرا High Court بجرا ما محكمة الصراحة شيء كيسن لما كسي صدايا مركا لما نس دستور كا مركا marka maxkamadda kale oo jirto waxa jirta maxkamad constitutional court waa gooni waxa kale oo jirta magistrate court baa jiraan marka waxa maxkamadda kale oo jirto Kenya waxa jirta maxkamad loo hagaajiyay dadka ummadda muslimka ah oo wadanka degan qadis court baa lagu yeeraa قد سقطنا history ده كله history جالسة إنه هذا إني تحققه مسيرة